halkani waa bandhiga Shariba Show fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe ka saaro si mar walba barnaamijyadeena ay kugu soo dhacaan ina laalay intii hore subscribe u saarteen oo xaleenahay aad ba u mahadsantiin bandhiga Shariba Show warar xaqiiqada ku salaysan iyo hadba macluumaadka cusub iyo wararka cusub ee dalkeeni hooyo iyo dibaddaba Shariba Show ciidanka asluubta meel kasta uu joogo maanta yaan salaamayna saraakiishiisi saraakiil xigeenkiisi dablaydiisi iyo xaasaskiisa iyo meel kasta ay ku nool yihiin maanta salaam baan gaarsiinaynaa ciidanka asluubta markaan ilaaha marka maanta waxay meel badan ka xusaayaan xuska 52 oo ciidanka asluubta waxay meel badan ka xusaayaan goobo badan oo ciidanka asluubta u degan Boosaaso waxaa la yiraahdaa meesha la yiraahdo Boosaaso waxaad ii sheegtaa Dhuusamareeb waxaa kaloo ii sheegtaa Beledweyne waxaa kaloo ii sheegtaa meesha la yiraahdo Doolow Baydhabo Banaadir intaba waxay ka xusaayaan maanta konton guurida 52 ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka asluubta ciidan waxaan nahay ciidamada dalka yaan ka midnahay ciidamada qarankan ka midnahay afarta ciidan baan ka midnahay wixii ciidan laga rabo oo dalku uu ka rabaan annagana yaa nagala raba hadday tahay difaaca ummadda iyo qaranka iyo dalka iyo hadday tahay ilaalinta dadka aan gacanta ku hayno iyo hadday tahay korinta dadka tabaalaysan oo ciyaalka yaryarka ah sida kuwaan hadda naga soo horjeedo oo kale intaba waa waxyaabaha nagala rabo annaga aan iska leenahay waay maadaama naliid ciidanka asluubta innaga iska leh kuwaan annaga leh shalay say ahaayeen waad ogeydeen markaan halkaan keenay maanta sida yihiin waad arkaysaa waan yar yihiin waa badinayna da'daan oo kale wixii oo magaalada ku jirana waa aruurinayna waana badinayna ilaahay idankii waana fiicnaanayaan mana dhibaatoon doonaan innaga maxaa nagala rabaa marka annaga ciidanima nagala rabaa waana ku mahadsantiin sida aad maartay noo qaban qaabiseen saraakiisha oo qaabka noo dhisteen aad baan kugu mahadnaqayaa ciidanima nagala rabaa dadaal ciidan baa nagala rabaa diyaar garow waa nagala rabaa cadowga waa adinka arkay xogaa waxaad moodaa siyaasadda xageed iyo doorashada markii loo jeestay ayaguna waa naga soo daba jeesteen cadowga dalka waa naga soo daba jeesteeno waxaad moodaa inay shaqadoodii kordhiyeen innagana waxaana looga baahan yahay inaan taanada kordhino difaac iyaga inaan kordhino ilaalinta cadowga inaan kordhino xogtiisa raadinteeda inaan kordhino meel allaali iyo meeshii mataqaanaa yani loogu talagalay oo dhan inaan difaaca adkayno iskana ilaalino ayaa loo baahan yahay tanteeda kalena ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo annagoo sida tan u badqabno u nabad qabna Allah nagu gaarsiiyo intaa waxaa ii dheer nimanku waxay soo sheegteen inay annaga noo yimaadaan waa ku celcelinaynaa warkaasiga inayna soo salaamaan bay sheegteen waa ula ekoonaatay macni inayna soo salaamaan annagana sidaan ku salaami lahayn waa inaan semberi diyaar u nahay jiljilaac waa inuusan jirin haddii ninkii ku soo aado meeshii lagugu ogaa ay guriga kuugu yimaado inaan la waraysato ka rabaa la waraysigaas aan u diyaar garowno darajo kasta wada oo ciidanka asluubta aan u diyaar garowno qoraxa la taagan yahay xaloo dhan baa la soo jeeday la taagnaa waxaan ku dadaalaynaa in aan waqtigu soo yarayno inkastoo qoliyii garsoorka hadda ay nagu soo biireen
oo kuwii qoladii ciidamada ay nagu soo biireen waqtiguna waa iska yaryahay waa soo gaabin doonaa waxaa la inka rabaa marka oo nalooga baahan yahay si kalsooni leh wada shaqayn leh kalsooni leh wada shaqayn leh ciidannimo leh inaan u difaacno dalkanaga iyo dadkanaga iyo wixii nagula ogaa oo aan garanayno maalin hore waxaan ku hadlay kelmadii ahayd hadda ka bacdi ma dhahayna nimanka magacii hore maxabiis ma dhahayna ardaydii xabsiga joogtay aan dhahayna ka tagi mayna wasiir gudoomiye soo dhawow ka tagi mayna kelmadii ayaga ahaa da ardaydii meeshii joogtayna shaqadii nagula ogaana inaan qabanana waa loo baahan yahay hadalna maharin ninkii iga horreeya akhriyay taliixgeenkii koowaad waxaan ku wareejin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo wasiir gudoomiyihii nagu soo biiray oo maxkamadaha adduunyada sharci kama maaran annaga askaraanna